السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الملك joogtaan kusoo dhawaada janaalkayga Bashir Maxamed Baradar barnaamijka saakay iyo suuqa kaliibsi oo aftoodan kusoo qaato wararka ugu xisaab badan dhanka suuqa iyo warbaahinada salaam ku qaato dhanka suuqa. Wararka dhanka suuqana waxaa kamid ah Bayern Munich ayaa xiiseynaysa in ay macalinkooda Niko Kovac ay shaqada ka eriyaan isla markaana ay ku bedelaan macalinkii hore Manchester United iyo Chelsea Jose Mourinho xilli ciyaareedkan kaasoo bishii December laga eriyay shaqada kooxda Red Devils-ka. Warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Tottenham Hotspur macalinkooda Mauricio Pochettino ayaa diiday in uu damaanad qaado kooxdiisa in xilli ciyaareedka soo aadan uu ahaan doono hogaamiyaha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah kubasameeyay hore Liverpool ee Philippe Coutinho ayaa u sheegay saaxiibadiisa kooxda Barcelona inuu doonayo xilli ciyaareedkan inuu kooxda isaga tago. 26-jirkan heerka caalami ayaa lala xiriirinaya Premier League inuu dib ugu laaban karo Manchester United iyo Chelsea ayaana adeegiisa ku dagaalamaya. Warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Manchester United macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya inuu la saxiixdo Juventus weeraryahankooda Douglas Costa 20 jir inkastoo tartan uu kala kulmayo kooxaha Manchester City kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain dhammaantood badanaanaya adeega xidig u dhashay. Warar kale dhanka suuqa waxaa kamid Everton ayaa u sheegtay 24-jirka ka tirsan kooxda u dhashay wadanka Faransiiska ee Courtois Zuma oo qaab amaah ku jooga gida caalamiga Gothenburg oo ay leedahay Chelsea in ay doonayaan si joogto ah ay u qaataan adeegiisa sida wararku ay leeyihiin. Warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Arsenal ayaa ugu yaboohaysa goolahayahooda da'da ah ee Petr Cech oo 36 jir ah in dhamaadka xilli ciyaareedkan uu door ku yeesho kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhanka iyo weliba maamulka inkastoo uu rajeynayo in kooxdiisii hore uu dib ugu laabto isla markaana door macalinimo uu ka helo kooxda ku ciyaarta gida caalamiga Stamford Bridge oo waqti badan kusoo qarash gareeyay xidigan heerka caalami u dhashay wadanka Jeega. Warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Everton macalinkooda Marco Silva ayaa sheegay in ay kooxda u baahan tahay Everton xasilooni iyo weliba bandhig cajiib in ay sameeyaan xilli ay jireen warar ku aadan macalinkan Gibbon baa laga erin karo kooxda kubadda cagta ee Everton oo macalinkani dabcan waday isla markaana wararka soo baxay ay warinayeen in kooxda laga ceerin karo. Gibbon barnaamijka waa inta ay nabadgelyo.